dowladda Soomaaliland ayaa qorsheynaysa in dib u dhis iyo dayactir ballaaran lagu sameeyo dekedda kalluumaysiga ee Meedh taasoo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan SDF. Haddaba Yuusuf Jaamac Maxamed oo ka mid ah qurbo-joogga reer Soomaaliland ee ku sugan waddanka Kanada isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii dayactir iyo dib u dhisba loogu sameyn lahaa dekedda kalluumaysiga ee degmada Meedh ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo qorshaha la doonayay in dib loogu dhiso dekeddaasi isagoo sidoo kalena faahfaahin ka bixiyay dib u dhis iyo dayactir kale oo lagu sameynayo wadada dowga tabca. Yuusuf Jaamac Maxamed oo khadka teleefanka ugu warramay Harnaag News ayaa sidoo kale ka warramay dacwad ay ka gudbiyeen shirkado ajnabi ah oo doonaya inay macdan ka baadhaan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag isagoo xusay in dadweynaha deegaanku ay ku guuleysteen inay hor istaagaan shirkada ay wateen dad ajnabi oo aan ogolaansho ka haysan xukuumadda Soomaaliland taas oo hawlo dhinaca macdan baadhista ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Su'aasha ugu horeysay weydiin waxaad bal inuu faahfaahin ka bixiyo mashaariicda amdooyinka ugu dambeeyay ku hawlanaayeen ee dib loogu dhisayo dekedda kalluumaysiga ee Meedh waxaanu ku jawaabay waxa weeyaan Cabdirasaaq haddaan kaga warramo dekedii kalluumaysiga satiga ahayd muddo dheer adigoo aweysoo hor naga qaaday marka alxamdulillahi rabbil caalamiin hawsha waa lasoo ogolaaday madaxweyne doorkeeda uu taagay isna qaranka ugu sii doogay marka horeyaasha la kulmeen shirkadii ku tartamayeen bininkii waxaa loosoo ugu dambeysa bishan 15keeda injineerka markaan wareysanay SDF gobolka wuxuu noo sheegay inay bisha Maaris haddii ilaahay raalli ka noqdo marka development waxa ugu dambeyn inay bilaabmi doonto insha Allah billahi taala wadadina meel wanaagsan bay noo maraysaa fiiska labaad galay idan January hadda la yiraahdo marka dhammaan TV-yada iyo dhammaan meelaha dibadaha iyo gudahaba waxaan insha Allah billahi taala ku rajayna fiiska hore noo soo dhamaaday dhinaca deegaanka inkana waxa aanu gelaynaa qaybtii labaad oo aanu in ka bilownay oo aanu dadkii tukaamada iyo baacmistariyada iyo magaranaysa dibadaha joogay ugu dambeyn bishan February waxa aanu soo gudbi doonaa haddii alla yiraahdo gudaha waxa kaloo gudoomiyaha gobolka Raashaad iyo isaguna ay ku dareen mashruuca SDF2 in maadaama dekedda SDF lagu daray inay naga kabaan maanta la hadlayo markan hargeysa jooga waxaan hargeysa yimi in UNDP iyo SDF2 ay ka caawiyaan mar haddii dekedda noo dhiseen wadada ay noo raaciyaan oo ay nagu daraan oo sideen garanaysa ay dekedda u noqoto deked balaadina ma shaqeynayso marka iminkan gudoomiyaha wuxuu joogaa muxuu ahaa magaalada Hargeysa inuu hawsha soo dhameystiro insha Allah waxaan ku rajaynaynaa SDF2 oo marka hore gobolka markay yimaadeen ay seefiga sameynayeen hawsha in lagu daro ayaanu insha Allah rajaynaynaa waqtigaana inuu wuxuu yimina in Yuusuf in idinku halkaad marinaysaan in qorshayaashii ay wadeen dadka qurbo-joogga ah ee la doonayay in lagu abaabulo si looga qayb galo dekedda dhismaha dekeddaas iyo sidoo kale wadadaba dhismaha dekedda iyo maxamed laakiin amar waxaan si aanu awalan u sameyno shaqaale sameyn marka waxaan imika diyaarinaynaa dooniyihii dadka si dadku shaqo uga samaystaan waxaan diyaarinaynaa qaboojiyaashii baan diyaarinaynaa waxaan diyaarinaynaa tababaradii ودمر وضع أنه وحن كشقينا هرمات قبلك ودبنا إنك حدي الله يرحضه بدكي فيس كهر ونص أنا ماري وعيقلين كهرمات كهروي لما تدخلنا بيسوا بيسوا هرو الشيء بقى إنك قالوا بصوب إبحيان أنت حدين وح أنكرت وين حي إن يسوق الجبور بيشن آخر كذا في فيسوس كشرة مقارنة إنك تبع عن سبيل سام كل شيء وان بروني إلا جود حنا Yuusuf waxa jirtay in Yuusuf kulan aad la balansanadeen wasiirka horumarinta shirkadda Soomaaliland kaas oo aad hordhigaysan qorshaha doonaysan inaad dayactir iyo dib u dhis ku sameysaan wadada dowga tabca in qorshaha wasiirka hordhigteen maxaa jawaab ka soo baxday barigii dhaweysay odayaasha ugu tagay madaxweyne booqashada ku tagay magaalada Argaabo wasiirkuna uu la socday madaxweynuhu markaa ballan qaaday in wasiirka ku reexay wasiirkuna uu hawsha ka qayb gali doono oo qayb libax ka qaadan doono marka wari inkastaan ku soo geedan aragan laakiin si odayaasha ayaa fariintii aanu doonaynay madaxweynihii oo madax laga saraxay isaga weeyaan iyo wasiirkii la hadlay waxaan ballan qaadeen inay airportka iyo dekedda iyo muxuu ahaa iyo wadada ay ka qayb qaadan doonaan la bilaabi doono si dhaqso ah marka waxaan ku rajaynahay mar haddii madaxweyne amar bixiyay inay hawshaasi uu qaadan doono wasiirka haddii alla yiraahdo hawsha aan u soo bixi lahayn oo naga furtay وقشده أو كنت مدحونا مقابل عرقابة وضيع شلوك مركا إمكا قرشها ودده هالكو مريا قرشيه ودده خوين دقاليه مالو نعسن بالنمرية انتي فيسكي هورنا في عمل سوزة بقبيني
waxaan ku rajo weynay de waxaan sugaynaa oo aan wada soconaa gudoomiyaha gobolka haddii aan la yidhaahdo mar walba aan wada xiriir leenahay marka waxaan eegaynaa bal hadda SDF2 maadaama lagu daray qarashka haddii dee uu noqdo qarash dhulka carruur baanu samayn karnaa oo ma samayn karno muxuu ahaa wadada laamiga ahayd laakiin haddii wasaaradda iyo qolada SDF2 ay naga caawiyaan waxaa laga yaaba wadada noqoto wada standard oo laba haad oo ama garanaysa daamirkeeda iyo waxeeda oo dhan wadato dee caalami ah laakiin ta anagu imanka haddaan sanaa bilaaba oon tayna 3 sano bilaaba anagu waxaan ku rajo weynahay inaanu 3 sano u bilowno laakiin kastoona taariikh xadidin waxaan isku garanay inaan 3 sano bilowno wadada carruurka ah laakiin haddii ka soo horeyso oo ay SDF2 iyo dowladduba ay naga kabto waxaa laga yaabaa inay dee wado wanaagsan noqonayso dowladdu ilaa laan meedin cadaysay in qorshaha ay ugu tala gashay ee ay kaga qayb galayso dhismaha wadadaasi dowga tabca may ilaa hadda wax qorsho oo ay xadidaad ku samaysay dee waxa ka horeysa marka in la sameeyo survey la sameeyo feasibility la soo dhameeyo wadada noocay noqonayso qiimaha ay ku kacayso waxaas oo dhan aniga ku tala jirnay laakiin iyadu nimankaasaad garan karaysa